dagaalameen macnaha waxay وإذا صرفت marka la duwo absaaruhum indhahooda qoladan gidaarka saaran marka indhahooda loo jeediyo tilqaa asxaabi naar qolada naarta ku jirta xaggooda marka indhahooda loo jeediyo ila ila xaggan eega qaaluu waxay leeyihiin qolada asxaabul acraaf rabbana ilaaha yagiyow laa tajcalnaaha nagu darin maca alqowmi الظaalimiin kuwa dulmi falayaasha ilaah wana raacin wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabul acraaf qoladii gidaarka dul baxsanaa rijaalan rag bay u dhawaaqeen yacrifuunahum ay ku garanayaan bisiimaahum calaamadahooda oo naarta bartanka ugu jira qaaluu waxay idhaahdeen maa aghnaa cankum muxuu idinka taray dee jamcukum xoolihii aa ururinayseen iyo xooggii wamaa kuntum tastakbiruun wastikbaarukum wa kownukum mustakbiriin iyo isweynayntii aa isweynayn jirteen maxay idinka tartay dee naar baa gasheene haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwii miyaah أقسمتم أكدارتين لا ينالهم الله برحمة لا ينالهم الله إنانو إلهي قارسين إنانو سينين برحمة حريص ادخلوا الجنة جنة قلب علي لا خوف عليكم عبسيدوشي إنما يهانين ولا أنتم تحزنون صوتادتك يا شهادة يمكن جنة لقوا عسوني وناداوا حل واقي أصحاب النار والذي النار تكوشري بعد واقي أصحاب الجنة qoladii jannada ayay u dhawaaqeen ana fiidu calayna nagu soo shuba bay yiraahdeen ay afiidu calayna min almaa biyaha nagu soo shuba qayb kamid ah aw mimma razaqakum allah ama waxaan ilaahay idin ku arsaaqay warbal wax naga siiya warciyi baan u baahan qaaluu waxay yiraahdeen inna allaha harramahuma ahlu jannihi baa yidhi inna allaha ilaahay harramahuma labadaa uu ka diintoodii ka dhigtay lahwan walaciban dheel iyo ciyaar وغرتهم الحياة الدنيا نرشي الدنيا دون أي لجويس فاليوم ننساهم إلهي بأوحول ما أنت وانو كتجينا نار تلاقي كتجيا كمان نصوص سيدي أيو كتجينا ولا وين لقاء يومهم هذا مال كودا لكل كيس وما كانوا بآياتنا إيا أهانتي أي أهادين آياتها يجحدون كوديده تنبيذ الله هيستوى قوة مركب هذا كان مركز سلا وإكتو waxay ilaahay uu ka warramaya waa muuqaal buu ilaahay soo bandhigaya nafteenu ay sawiran karayso oo saameyn karaya oo khushuuc ku abuuraya oo cabsi ku abuuraya oo aad u muuqato inaad dhex taagan tahayba goobta ilaahay uu ka warbixinaya subxaanahu wa tacaala xigmadda laynoogu sheegayana waxa weeye waxyigu daa inuu dareen inagu sameeyo wax inaga bedelo marka muuqaalkan ilaahay horteena keenay ilaahay baynu ku qanacsanay aynu aaminsanay rumaysanay wuxuu inoo sheegayna waa rumaysanahay marka waa inuu ku noqdaa wax aad arkayso oo kale lidalik ba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo waa naara ka holcaya xijaabkaasi ba marka acraafkiina uu noqday oo acraafku min carfi diig baa laga keenay hadii jeer bahalka diiga la yiraahdo bulbul yaro kor u taagan buu leeyahay oo saa u taagan marka gidaarkanina waa mid ka taagan weey uduriba baynahum bisuurin lahu qaaladu marka dadka shahaadanaya u baaqayana waxay dhaw sabtaynu ifkiisku qolaha sabtaynu isku dawladahay isku reerahay qaalu alam nakun ma'akum qaalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور لما حي مسلين ليلة وحاسو برايا واقشين انت اسو غدبا واقش isku wadan weyn oo hayno ifkii weyn wada joognay laakiin idinkuna waxa saa walaaqaysan annaguna waxay isugu u badan yihiin qowlka ugu dhaweyna uu yahay dad markii amalkoodii la miisaamay sharkii iyo khayrkii uu islaagaaday oo qoladii khayrkii uu batay de waa kuwa jannada u daadegay qoladii sharkoodii iyo balaayadooda ay badatay ama ahlu naarka ahaa gaalada haaban leeyahay naartii bay ku xaroodeen qolo sharkoodii khayrkoodii islaagaaday ayaa halkan la soo joojiyay iyagana iyagu xagay ku dambeynaya marka aayada aynu eegno waxa rajadoodu ay u badan tahay inay jannada galayaan oo bushaara ay hayaan waayo ilaahay wuxuu yiri lam yadkhuluha wa hum yatma'un may galin wali wayse ku rajo weyn raja ilaahay ka heloon weyn marka inaanu sahlanayn ba ku muuqanayso qof oo uu soo dadaalay
qofka dee boqolkiiba konton maraya ma dhicin boqolkiiba konton kale hadduu ardaygaasi maraya imtixaankii ma sahlana arrinkiisi wuu soo dadaalay hadalladooda iyo waxa ay ku farxayaan iyo siday qoladan ula hayaan qoladanna ugu shidayaan markaad eegto xagganay jiraan axsaabulcaraaf waxaa rabbuna subxaanahu watacaala uu halkan inoogu caddaynayaa qoladan asxaabulacraaf halkaa ummadda ilaahay oo dhami ay garanayso qofkii wanaagsanaana calaamooyin wanaagsan baa halkaa markii horeba jawaabtiisa halkaasa laga hayaa waa la arkaya xaguu u soconayo wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofka ballanta jabiye had iyo jeer ee ballanba aan lahayn in loo taagayo calan waxaa la leeyahay hadihi kadratu fulaan ibnu fulaan tani waa ballan jebintii hebel hebel xadiiska saxiixa waxaa ka muuqanaya qofka in magaca aabbihii loogu yeedhayo soomaalidu waxay dhahaan magaca hooyadii baa loogu yeedhaa xadiiskaas wuxuu caddaynaya ka aabbihii baa loogu yeedhaya hebel hebel ballanka bixiisi marka ninkii ballanta ama qofkii ballanta aada u jebin jiray intee oo calan buu yeelanayaa midhku jebiyaaba calan buu dhexlayaa markaasaa dabeetana calaamadiisaasi waa calaamad laga muujiyey qofka riba cunaha naaruu soo kabacaya ama xoolaha agoonta cunayay الذين يأكلون الربا لا يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا نار مركا إسقينا كسو بتاعيس قفكي مجاهد كها على موي ونكسب بلغا موجنا يا دي جيسيو ودقوم با إسقينا كسو برقنا يا ساسو بوسو عنيس قفكي مؤمن كعبادة بدنا افتين كي ويسدا يعرفون كلا بسيماهم والله يقول هذا سنوا أهل النار كي علامته ذي بموضة كون نوا أهل الجنة علامته ذي بموضة لبدا قلبا كل كأهل كأركان أي دبتنا هم بليين يعني قل ذي جنة وهم بليو توقع على سوي ضد جنة ذي كحراضي وركيه والبهار كيه ولاعي وكهري وما لين تان نصتي أي قل ذي أن سوق اللي هم بلي اللي وحيكون سلامين هم بليو ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون nabadgelyo dushiina ha ahaata bay leeyiin waa nabadgasheen annana waa rajaynayna qoladan asxaabulcaraaf gidaarkan dul taagan ee halkan weli lagu xanibay lagu hakiyey ee weli arrinkoodii dhan dhooridina rajada qaba kuwa markay eegayaan ahlu jannaha eegmadoodu waa eegmo farxad leh indhaha ay ku hayn karayaan jeclaysanayaan laakiin xaggan kale ee bidixda marka la yidhaahdo eegma ay noqoto iyagu ma eegayaan laakiin waa in loo jeediyo si ay wax u arkaan markaas ficil loo jeediyo ay sidaa u eegaan tilqaa asxaabi naar qolada asxaabu naarka dhinacooda qoladii bartanka taagnaa marka la yidhaahdo xaggaa eega bal bidixda eego kuwa naaraha eego balaayada halkaa ka holcaysa jawaabtooda waxa weeye rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi الظaalimiin war kale ma leh hambaliya ma jirto waxa weeye ilaahay kuwa nagu daray ilaahay kuwa naga badbaadi nimankii markaa asxaabul caraaf sidii qoladii ahlu jannuuba ay u eedeeyeen kuwa naarta galay asxaabul caraafna waxay eedeynayeen iyaguna kuwa naarta galay waa ku wiirsi waa ku digasho waa ka bari noqosho ay ka bari noqonayaan marka aad aakhiro kuwan ka bari noqonayso waa markaad ifka kaga bari noqoto laakiin haddaad ifka iyaga daba socoto iyo adduunyada aakhirana waa daba soconaysa waman yatawallahum minkum fainahu minhum ilaahay wuxuu leeyahy gaaladaas diinlaawayaasha qofka adduunkan wilaayo la yeesha gacaltooyo ee iyaga ku beere raaca muslim bahaada iyaga jamacooda noqde raaca iyagu ka mid yahay baa ilaahay adduun iyo aakhiraba marka ciddii ka beri noqotay ahaan أصحاب الأعراف مركا وين واقعين هذا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ولدي برتن كتاجنا قلاي على مدى ذا كوكران يانو قلدي نارها كمدة أي لحظ لين على مدى هنو حيسك صورة قلا على مدى خاصينين أو هبل هبل أيو قران يان اللي مركا وربا النار تقول كتيرانو ينهلو نارين الأرقي أما عمل ذي حماية أي سنين ترين calaamadahoodii bay ku arkayaan shakhsiyaadkoodii bay u garanayaan waxay yidhaahdeen maa aghnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun labada arrimood lagu naar muto labada arrimood ee nimankana ay naar ku galeen bay u calaamadiyeen
waxay yidhahdeen adduunkii markaad joogteen ururintiinaa badnayd isweynayntiinnuna way badnayd maxay idinka tartay dee marka ururinta maxay ururinayaan xoogay ururinayaanoo xoolahay ururinayaanoo dheefta adduunyada ururinayaanoo adduunya u noolaayeen ilaahay iyo aakhira midna umay noolayne adduunya u noolaayeen marka waxay wax ku qiimayn jireen adduunyahay idan markaa maxay idinka tarteen ile adduunya urursateen markaasaa ummadda ugu tar sheegateen markaasaa ku kibirteen xoog iyo xoolo iyo xirfad waxaa lahaydeenba waa ku kibirteen maxay idinka tartay dee waxba waxyaabaha kale ee markaa dadka naarta laga raacay waxaa ka mid ahaa inay xaqiri jireen awliyada ilaahay iska nabadgeli weliga ilaahay inaad xaqirtaa waxay kuu keenaysaa inuu ilaahay kuu cadhoodo man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofka la colaatama ama xumeeya ama xaqira ama ku jeesjeesa dadka awliyada ilaahay ee mu'miniinta ah naar buu ku mutaysanayaa qofku inuu ilaahay kugu cadhoodo oo uu kugula dagaalamo marka asxaabulacraaf waxay eedaynayaan weli kuwii ahlu naarka waxay yidhaahdeen haaulaa'i kuwaas aladiina aqsamtum laa yanaaluhum allahu biraxma miyaan ahayn kuwii aad ku dhaarateen inaanay naxariis ilaahay ka helayn war dadkaa iminka jannada galay ee annaguna aanu rajaynayno ee raaxaystay sawtaa adduunyadii odhan jirteen kuwan ilaahay naxariis ka heli maayaan oo adduunyadii bay ku dhiban yihiin ama aanay waxba helin oo aakhirana waxba heli maayaan sawtaa odhan jirteen sawta xaqiri jirteen udkhuluu ljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun intaa ayaa odhanaya asxaabulacraaf baa odhanaya marka asxaabulacraaf kolkay sidaa u eedeeyeen ahlunaarkii bay jannadii qoladii ku jirtay eegana waxay idhaahdeen udkhuluu ljanna laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun ama macnuhu waxa weeye qowl xadfan baa loo soo qadarayaayo waqad qiila lahum kuwii aa xaqirayseen sawtan lagu yidhi udkhuluu ljanna jannada gala maanta ciddii aa lahaydeen ilaahay naxariis ka heli maayaan adduunyadii aa lahaydeen sawkan ilaahay jannadiisa ku casuumay bayna marka waxyaabahaasaa ku cadaab mutaysateen adduunyadii oo ka daba dhacdeen idinka oo kibray awliyadii ilaahayna xaqiray waxaa kaloo halkan ka muuqanaya haddana yeedh baa ilaahay u xusay baaq kale baaqani waa kii ahlu naarka ahlu janni bay u dhawaaqeen way martiyeen marti aan jawaab lahayn jawaab aan laga helayn waxay yidhahdeen waxaa nagu soo shubtaan biyaha ilaahay idin siiyey iyo arsaaqadda muuminiintuna waxay ugu jawaabeen labadaa ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey gaal ilaahay uu ka xaaraantinimeeyey kol hadduu qofka ilaahay dafiray qof ilaahay dafiray labadaa janno taaban maayo waxuu ka helayaa ma jiro ibnu cabaas waxa uu lahaa radia allahu canhu wax la sadaqaysta waxa u fiican biyaha miyaydaan maqal buu ihi hadalka nimanka la ydhaha jahanamiyiinta ahlu naarka hadalkooda miyaydaan maqal wixii u horeeyey ka codsadeen ahlu jannaha waa biyo nasiya lidaalik baa casrigan la tilmaamaa qofka bani aadamka ahi intuu cunada ka maarmo waktigu cunada ka maarmo in la eg biyaha kama maarmi karo qofku waxa ugu horeeyo u dhintaa ee ugu weyni waa biyaha cunada muddo dheer wuu ka maarmo dee xoogaa wuu iska sii yar noolaan karaa laakiin biyaha wax yar ma xamili karaa intuu gaajo xamilaha raad ma xamili karo ila ilaahay wuxuu uhi wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay afalaa yu'minuun shay kastoo noola aba biyuu ka soo jeedaa baa ilaahay uhi subxaana wa tacaala jidhkeenniina intii badnayd dee biyuu noolay marka halkaa wax aad sadaqaysato ama aada waqaf u bixiso biyaha u qiimo badan buu leeyahy oo adduun iyo aakhiraba dee nolosha ay ku taagan tahay ilaahayna subxaana wa tacaala ahlu jannaha markii uu xusayey fii suurati muxamed webiyada uu ku casuumay qiimaha badnaa maxaa uu tilmaamay afar webi bay ahaayeen mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maain غayri aasin waanhaaru min labani lam yatagayar طacmu waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casal waa afar webi webiga u soo horeeya waa ka biyaha caanaha khamriga malabka khamrigana waa khamri aan sakhrad lahaynoo dee sharaab macaanuuna marka webigii biyaha xataa caanihiibuu ka soo horeeya idan markaa dadku noloshooda waxa kow ka abiyo markaa haddaynu tiknolojiyada ku dadaalo oo mobaylada aynu wada xambaaranno oo tiifiyada wada siraadanno laakiin aynu haraadannahay xayraan uniga dheh oo dadku kole hadday haraadan yihiinba waxay inay biyo raadsadaan
kuwa cirka xidhaan kuwa dhulka la soo baxaan noloshooda asaasiyaadkay kowkatay biyo ay kowkay xuruubta adduunyada dagaalada ka socdana biyo u badayn iyo kuwa u dambeeyaba sida la saadaalinayo waa mas'ala kale taasi laakiin waa xikmad laga faa'iideeyo aayad ana fiidu alayna min almaa ifaadadu waxa weeye butaacada waa nagu soo butaaciye waxay arkeen meesha qasabadaha ka boodaya iyo butaacada markaas iyaguna butaacadii codsadeen ama waxay butaacada u codsanayaan wax butaaca ka yar baan ku filayn marka la eego holaca meesha ka baxaya inna allaha harramahuma ala alkaafiriin قالوا وكوا هذا تلمانتو ذاك الذين يتخذون دينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وكوا عيبه هذا دين وحوها عيار يدلل نلاشو مركان الدين لهاي وحلا وحقفك وضوا عيارية بلا معنى عيارية بلا معنى وحبا لقى مرد حلاه إذا مركان نلال آن دين لهاي النتيجة حم بين الله مركا واحد دين وها حياة هذا قالك وحدين وها عيارية بلا معنى نرشأ الدنيا دون وين لجويس مال كنا وين لا وين فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما أنت وانوا إلا وين هذا إلى هول آيات وحفصير آيات سورة طه كسجنا إلى هول وما كان ربك نسيا ربك وحمى إلا هو زاد راد العلماء والعقيدة وحيلين وحلقوا فسر يا فاليوم ننساهم بمعنى نتركهم في العذاب عذاب كانوا كجتجينا iyaguba maalinta way ilaaween oo qofku wuxuu ilaaway miyaa loo qabsan jiray maya way ka tageen bilaa macna iyo ciyaar aakhirana way ilaaween adduunyadu bay ku ekaadeen ilaahay aayaadkiisii ummadda hanuun ilaa ilaahay ku xidhi lahaana way tuureen oo way diideen waa inta shaqada waa gaalka baldiraaseeyo daba galo toosh ku eeg noloshiisa intan aayaadku ay ku eedeeyeen baa shaqo ah intaasuu ku naar galay halka lagu daayo way wallahu subhanahu wa ta'ala